maalintan idin wadi kari waayaan idin hogaamin kari waayo waa idinka tegaya laakiin ul idinku ururin maayo maanta in mar dambe ay maxay hayday cid kale dawladnimadoodii ka daba joogaan iyagoo reer waqooyi ma aha isaaqa ma aha gadaguursiya ma aha iyagoo reer waqooyi reer Somaliland aan wada shaqaysano aan wada dhisano aan wada fursadano aan wada hagaajino mucjisadii ka dhacday madashii aaska 10 kun oo gaadhi oo si nabad ah u yimi kana baxay magaalada ilmadii ka dareertay intii ay isugu fogaayeen iyo salaantii kaliya laab u dhex martay colkii deeradu dhex maranaysay waxay ahayd galabnimo jimcaha meertada taariikhdu marayso 3 bishii shanaad 2002 madasha aanu ku sugannahay waa xaruntii wargeyska haatuf ee magaalada berbera xilligu waa casar gaaban saasi waxaa qoray cali mahad yuusuf markii la gaadhay baahintii galabnimo ee laanta afka soomaaliga idaacadda BBC-da qodobkii ugu horreeyey wuxuu noqday warka dhimashada madaxweynaha axmed siciid cige ayaa inoo haya taariikh nololeedkiisa الله ونحريسته محمد حاج إبراهيم عقا يرانتيسي وحا uu ku barbaaray magaalooyinka Burco Berbera iyo Sheekh oo uu ku dhameystay waxbarashadiisii malcaamadda Qur'aanka ilaa iyo dugsiga Sheekh ee caanka ah intaas kadib taariikhdii maxamed xaaji ibraahim cigaal oo si tafatiran u tabinayay axmed siciid cige ayaa soo dhacay barnaamij waqti dheer qaatay ayaanay ka diyaarsay maalintaasi saacadda wixii ka dambeeyay waxa isqabsaday oo aad loogu mashquulay qoraalada tacsida ah ee idaacadda soo gaadhayay aan wada shaqaysano aan wada dhisano aan wada fursadano aan wada hagaajino 25 bishii afraad 2002 ayaa xaalad caafimaad loo dhigay cisbitaal militari oo ku yaala magaalada Pretoria ee dalka South Africa Allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo intii uu ku sugnaa cisbitaalka South Africa isagoo nool warbeen abuur ah laga baahiyay laguna sheegay inuu geeriyooday waxaa toos ula xiriiray BBC-da waxaana uu beeniyay jiritaanka warkaasi iyadoo hadalkiisa uu ka muuqdo caafimaad qab xaaladiisuna wuxuu ku sheegay inay aad u wacan tahay balse 2 maalmood kadib ayaa warka geeridu soo dhacay haddaba markii la xaqiijiyay geerida Allah u naxariistay marxuum cigaal guud ahaan bagayga Somaliland waxaa ka muuqday xaalad aan caadi ahayn sawirka guud ee ayaantaasina muuqaal aamusan oo qof waliba goonidiisa uga fikirayo siday wax noqon doonaan ayaa taagnayd walaac ku saabsan muranka siyaasadda ee xilliyadaasi jiray iyo inuu sababi karo qarax gacanta la isula tago ayaa dad badan maskaxdooda ka guuxayay waa marka la qiimeeyo halka ay kala taagnaayeen danlayda siyaasadda oo xifaaltanka iyo gujada u dhaxaysay aan waxba la isula harin markaan dib u milicsano jawigii magaalo xeebeedda Berbera oo ahayd halkii uu ku dardaarmay in lagu aaso Allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayuu qormadani ku yiri cali mahad yuusuf aynu ku horeyno labada wado ee midi ka timaado dhinaca Hargeysa iyo jidka Burco u baxa qaabka ay u socdeen baabuurta noocyadooda kala duwan isugu jiray ee u yimid inay ka qayb galaan aaska waxa intooda badani u soo dhaqaaqeen dhinaca Berbera galabnimadii 5 bishii shanaad ee 2002 oo maalintu ahayd Axad habka ay u susumayeen baabuurtaasi oo sanka isku hayay masaafo aad u dheer arinta la yaab kale ee aan filayo inaanay ayaantaasi ka hor dhicin waxay ahayd meelaha qaarkood oo labada haad ee sida caadiga ahi bidix iyo midig gawadhidu isugu dhaafto ayaa gebi ahaanba isu bedelay in dhinac kaliya oo xagga Berbera u soo wada jeestaan mana jirin shilal culus oo dhacay marka la qiimeeyo sida yahayd inta ay u suurto gashay inay soo raacaan baabuurtaasi magaalada imanaysay kasoko waxaa jiray dad kale oo dhalinyaro u badnaa oo lug kaga soo baxay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxaana xilligaasi gacan weyn ka geystay abaabulka gawaadhida waaweyn ee waaraadka loo yaqaano oo si tabaruc ah u gaarsiinayay magaalada saacadihii hore habeenkaasi ee 5 bishii shanaad 2002 waxaa marba marka ka dambeysay soo badanayay dadka Berbera ku sugan ee u yimid ka qaybgalka aaska dadaadu badan ayaana habeenkaasi seexday meelaha bannaan ee magaalada dhexdeeda sidoo kalena cirifyada iyo koonayaasha Berbera waxay hoy u noqdeen ilaa iyo intii waagu bariyay muujado dad ah halka in kale iyagoon ilya baaris u keenin sidaa ku tageen xabaashi markiliyana may kala goyn in saxmadda iyo cidhidhiga kumanaankaasi qof uu kala yaraado
haddaba intii aanu ku sugnayn gudaha garoonka berbera ayuu yidhi cali mahad yuusuf oo warbixintani qoray halkaasoo laga soo dejinayay meydka marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa soo galay wafdi miisaan leh oo uu horkacayo madaxweynihii cusbaa mudane daahir riyaale kaahin shir guddoonka labada gole guurta iyo wakiilada allah u naxariistay sheekh ibraahim iyo allah u naxariistay qaybe sidoo kale xubno ka tirsan golihii wasiirada oo aan filayo inaanay hadda cidiiba ka noolayn ayaa iyaguna ka mid ahaa xubnihii barxadda garoonka yimi raggaas oo kale ahaa wasiirkii caafimaadka allah u naxariistay xasan ismaaciil wasiirkii warshadaha allah u naxariistay axmed jaamac bootaan daaniye iyo wasiirkii daakhiliga allah u naxariistay cabdilaahi cadde dhammaan madaxda goobta joogtay ilaa madaxweynaha ma jirin cid hadal ka soo baxayey mudane daahir riyaale kaahin oo dhowr tallaabo ii jiray oo jawi murugaysana ka muuqdo ayaa anigoo isticmaalaya dhawaysada kamarada ee suumta loo yaqaano ayuu yidhi cali mahad yuusuf waxaan si caadi ah ugu beegay wejigiisa balse kamaradii waxay qabatay muuqaal naxdin leh oo aad la yaabayso waaba dagaal adag oo gacanta iyo labada indhood ee madaxweynaha ka dhex socda ilmo si aayar ah uga soo boodaysa indhihiisa iyo masarka gacanta ugu jira oo joojin kari la ilinta dareeraysa anigoo filaya inuu dareemo kamaradda ku jahaysan ayuu si dhaqsaa hareeraha u eegay kadibna muraayad madow jeebka sare ee shaarka kala soo baxay sidaana labada indhood ku gashaday markii ay soo cagadhigatay diyuuraddii uu saarnaa meydkan allaha u naxariistay madaxweyne cigaal isla markaasina ay istaagtay goobtii loogu talagalay waxaa mar qura isku dhex daatay nidaamkii iyo qaabkii loo taagnaa ciidanka gaarka ah ee loo diyaariyey inay meydka diyuuradda ka soo rogaan iyo mas-uuliyiintii maamulka ayaa isku qasmay xoogaa kadibna ayay xaaladdu caadi ku soo noqotay naxash calanka somalilan ku dadnaa oo lagu siday meydka allaha u naxariistay marxuum cigaal inta albaabka dambe ee diyaaradda laga soo dejiyey dhulka la dhigay waxaa salaan gaar ah ku maamuusay cutub ka tirsan ciidanka qaranka iyo kooxdii baambooyada tumaysay heestii tacsida ee waa ayaanba ayaan duni aakhirsamaan ninna aanu lahayn dhaqso looga idlaa markay soo dhammaatayna waxaa la bilaabay in meydka marxuumka oo saaran gaadhi ambalaasa loo dhaqaajiyo goobtii loogu diyaariyey xabaasha oo ahayd qubuuraha dhinaca ku haya xerada guutada ee berbera mar kalese cidhiidhi khayralcaadi ah oo ka dhashay kumanaanka gaadhi iyo muujadaha dadka ahi ayaa meel kala mare la waayey waxaanay sababtay in ambalaaskii meydku siday oo wakhti dambe soo gaadha xabaalihii waxaase ii suurto gashay inaan gelin hore tago xabaashii iyadoo weli meydku dhexda soo socdo ayuu yidhi cali mahad yuusuf madashii aaska oo muuqaalka dadku siday hirarka badda oo kale u susumayaan waxaa isdhex ugaamayey kumanaan qof dhacdooyinka aan weli xasuustayda ka bixin waxaa ka mid ahaa jawgii cimilada oo xilligii kuleylka lagu jiray waxaase cirka dabooshay daruur aan roob ahayn oo hadhaysay guud ahaanba magaalada berbera gaar ahaanna intii dadku joogay inkastoo murugada iyo dhillada jirtay qof walba wejigiisa ka muuqatay fagaaraha aaskuna ahaa mid muujadad ahi ka dhex ugaamayeen baabuur sameecado qur-aan iyo ducooyin ka baxayana gaaf wareegayeen mar qudha ayaa xaaladdu isbeddeshay waxaa soo muuqday ambalaaskii meydka madaxweynuhu saarnaa oo ay galbinayaan baabuurta debdemiska hoonka dhiillada ee ay yeedhinayeen iyo qaabka socodkooda oo ahaa mid aad u naxdin leh gaadhi walbana shaagga rogaayo waxaa afarta gees ka yeedhay oohinta iyo baroorta ilaa heer ay cidiba cid maqli weyday dhammaan ummaddii meesha joogtayna wax ilmaynaya iyo in foorarta oo hadalba ka soo bixi waayey ayay noqdeen arrimaha kale ee maalintaasi taariikhda galay waxaa ka mid ahaa raggii ay sida weyn isaga soo hor jeedeen allaha u naxariistay madaxweyne cigaal oo ilmada ceshan waayey colaaddii iyo xanaftii sannadaha u soo dhexaysay ay ku dambaysay saamaxnaakum iyo allow marxuumka u naxariiso salebaan maxamuud aadan salebaan nuur oo ah guddoomiyaha golaha guurtida oo ahaa siyaasigii ugu tunka weynaa macaaridkii ay ishayeen ayaa mar uu isdultaagay qabrigii marxuumka oo aan weli meydka lagu ridin intuu jalleecay godkii xabaasha si degdeg ah uga soo jeestay ayaa mar qudha ilmo xoogahay labadiisa indhood ka soo boodday dhallinyaro goobta ku sugnayd ayaa markiiba soo dhaqaajiyey iyagoo uga baqay inuu sarajooga ka dhaco wiil dhallinyaro ah oo reer berbera ah ayaantaasi weydiiyey salebaan sawdinkii colka ahaa maxaad la oyday inkastoo ahayd su'aal adag balse jawaabta salebaan waxay noqotay war waxaannu doonno aan isku qabnee walee geesi baa inaga baxay wax badanna inaga gudbanaa balse dhacdooyinka xabaasha dusheeda ka dhacay waxay ahaayeen arrimo lagu tilmaami karo mucjiso rag maalintaasi ka hor aan indhahaysa siin jirin ereyga dhex maraana inta hadalka ugu xun ahaa ayaa sidii ehel iyo walaalo muddo kala baaday salaanta laabta isgeliyey oo mid weliba ilmadii ka dareertay kii kale dhabarkiisa qoysay
tiraabta ka soo yeedhaysa noqotay samiriya iimaan waxaana muuqday sawir meesha ka saaray warwarkii shacabka Soomaaliland ka qabeen halis amni oo ka dhalata muranka siyaasadda ee xilliyada taagnaa inkastoo saxaafadda Soomaaliland ay wayadaasi jirtay ay aad u koobnayd waxayse si fiican u baahisay wixii xog iyo macluumaad laga hayay sooyaalkii taariikhdii ee Allah u naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo kaalintii uu ku lahaa horumarkii ka hirgalay Soomaaliland iyo jawiga ayaantaasi waxaase jirtay gabadh wariye ahayd oo ka tirsanay telefishinka laga leeyahay dalka South Africa iyo nin film qaada ah oo la socday diyuuradii meydka marxuumka siday dhowr toddobaad kadib ayaan warkii habeenimo idaacadda Radio Hargeysa aan ka dhageystay abaalmarin caalami ah oo la guddoonsiiyey gabadhii wariyaha ahayd ee reer South Africa warbixintii ay ka diyaarisay aaska madaxweynaha awgeed waxaanay ku guuleysatay wariyihii sanadka ee 2002 marka dib loo qiimeeyay si saxaafadda caalamku u sharaxday hayaankii dheeraa ee Allah u naxariistay Cigaal dhismihii dawladnimada oo ka soo bilowday meel cidla ah oo aanay waxba jirin balse muddadii uu xukunka hayay waxa Soomaaliland yeelatay lacag ciidan dastuur qoran nidaam maamul maxkamado iyadoo aanay jirin dabley dib ku haysay amaanka